nabadgelyo saaxiibayaal, anigu waa Ibraahim Jamuni. Maalinku waa Khamiis 24 Maaj 2022. Waxaad ku soo dhawaataan wararka Hami Media Group. Maantadan waxa uu dooron booliska Beledweyne oo sheegay inay wadaan baritaano qaraxii khasaaraha geystay. Puntland oo shir ka yeelatay weerarada Al-Shabaab iyo Daacish. Sanbalolsho oo sheegay in qaraxii lagu dilay xildhibaanad Aamine Maxamed uu ahaa mid siyaasadeed iyo qorqoor oo kulan gaar ah la qaatay xildhibaanada laga soo doortay Galmudug. Akhbaaraadkaasi iyo kuwa kale xiiso badan ayaad ku daawan doontaan warkeena si ahaatee daawadu hadday tahay marka kugu horeyso booqashada halkan fadlan subscribe garee barteena YouTube la garee video la wadaag saaxiibadada beeshana Facebook like iyo follow ku reex dhiirigelinaya noo tahay aad u mahadsan tahay. warkan aynu ku bilaawnay madaxweynaha Hirshabelle oo amray in baaris degdeg ah lagu sameeyo qaraxyadii ka dhacay magaalada Beledweyne. Madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa aad u cambaareeyay qaraxyadii ka dhacay afaafka hore ee madaxtooyada magaalada Beledweyne oo ay ku geeriyoodeen Allah u naxariistay xildhibaanad Aamine Maxamed Cabdi, xildhibaan hore Cali Cabdi Dhuxul, mas'uuliyiin iyo dad shacab ah. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in cadowga argagixisada ay mar walba qorsheynayaan xasuuqa dadka waxgalka ah bulshada lagama maarmaanka ay tahay in meel looga soo wada jeesto. Madaxweynaha Hirshabelle ayaa u tacsiiyay ehelada iyo qaraabada dadkii ku naf waayay weeraradii, waxa uuna Alle uga baryay in naxariistii janno uu ka waraabiyo inta dhaawac ahna waa Alle u weydiiyay caafimaad degdeg ah. Ugu dambeyn madaxweynaha maamulka Hirshabelle ayaa faray hay'adaha amniga in baaris degdeg ah ay ku sameeyaan qaraxyadii ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. weli Beledweyne booliska Beledweyne oo sheegay inay wadaan weli baaritaano qaraxyadii khasaaraha geystay ee xalay ka dhacay gudaha Beledweyne. Kusumaha taliyaha booliska degmada Beledweyne Bashiir Cadaani ayaa sheegay in qaraxyadii xalay ka dhacay magaalada Beledweyne uu fuliyay ruux soo xirtay jaakada ka samaysan walxaha qarxa iyo sidoo kale gaari laga soo buuxshay walxaha qarxa. Taliyaha warbaahinta kula hadlay goobta ay ka dhaceen qaraxyada ayaa waxa uu sheegay inay si rasmi ah aysan weli u ogeyn khasaaraha dhimasho iyo mid dhaawac ee ka dhashay qaraxyadaasi. Waxa uu hadalkiisu intaa ku daray in sidoo kale ay wadaan baaritaano la xiriira tirada rasmiga ah ee dadka ku waxyeeloobay qaraxa, isla markaana markii uu dhammaado baaritaanka ay warbaahinta la wadaagi doonaan. qaraxyadii labada ahaa ee xalay ka dhacay magaalada Beledweyne ayaa waxaa ku geeriyooday xildhibaanad Aamine Maxamed oo ka mid ahayd xildhibaanada sida weyn uga soo horjeeda Villa Soomaaliya, isla markaana u doodeysay Igraan Tahliil Faarax. dhanka kale Sanbalolsho oo sheegay in qaraxii lagu dilay xildhibaanad Aamine Maxamed uu ahaa mid siyaasadeed. agaasimihii hore hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda ee NISA Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe oo ku sugan magaalada Beledweyne ayaa sheegay in qaraxii xalay lagu dilay xildhibaanad Aamine Maxamed Cabdi uu ahaa mid siyaasadeysan oo la qorsheeyay. Sanbalolshe oo la hadlay VOA laanteeda afka Soomaaliga ayaa sheegay in xilliyada qaraxa ay dhacayeen uu ku sugnaa meel waxyar u jira, isla markaana dadka ku dhintay ay yihiin mas'uuliyiin shacab iyo askar. Waxa uu hadalkiisu intaa ku daray in xilliga ay qaraxan dhacayeen ay soo dhamaatay doorashada kursiga Hob 63 sidoo kalena la gudagelayay doorashada kursiga Hob eber 11 balse qaraxyada ay dhaceen magaalada Beledweyne ayaa waxaa si weyn saaka loogu dareemayaa saameynta ka dhalatay qaraxyada, waxaana socdo baaritaano ay wadaan laamaha amniga Soomaaliya ee ku sugan magaalada Beledweyne. geesta kale Puntland oo shir ka yeelatay weerarada Al-Shabaab iyo Daacish. taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal gaashaanle sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa shir gudoomiyay shirka amniga gobolka Nugaal, waxaana ka qayb galay taliyayaasha saldhigyada kantaroolada iyo kuwa heeganka ah. shirkan ayaa lagu falanqeynayay weerarada ay Al-Shabaab iyo Daacish ka geysanayaan dalka iyo sidii ciidamada ay uga feejignaan lahaayeen loogana hortagi lahaa weeraradooda. taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal gaashaanle sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa yiri waa wiilal yar oo la marin habaabiyay, way dayacan yihiin mana lahan awood weyn, bulshada ayay ku dhex doontaan, mar haddii ay arkaan ciidanka oo feejigan waxba ma samayn karayaan. taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal ayaa sidoo kale ka hadlay ka hortagida maandooriyaha oo xilligan ka sii yaraanaya gudaha Garowe kadib markii ciidamada ay kordhiyeen howlgallada ka dhana maandooriyaha. taliska qaybta booliska gobolka Nugaal ayaa tiro dhowr jeer oo hore sheegay inay ka feejigan yihiin weerarada Al-Shabaab iyo Daacish, iyaga oo mararka qaar sameeya howlgallo ka dhan ah xoogagga Al-Shabaab iyo Daacish. markan Galmudug qorqoor oo kulan la qaatay qaar ka mid ah xildhibaanada laga soo doortay Galmudug kadib markii madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqoor uu dhawaan u yeeray xildhibaanada labada aqal ee maamulka Galmudug laga soo doortay ayuu xalay kulan waxa uu la yeeshay madaxtooyada magaalada Dhuusamareeb. kulankan oo ahaa mid isxog waraysi ah
ayaa madaxweyne qorqoor waxa uu kala hadlay xildhibaanada inay midoobaan islamarkaana ay si dhab ah ugu adeegaan dadka ay matalaan. kulankan ayaa sidoo kale madaxweynaha uu ku soo dhoweeyey xildhibaanada maadaama ay ku jiraan kuwo ku cusub siyaasadda, iyagoo uga mahadceliyey soo dhoweynta uu sameeyey madaxweynaha. horey madaxweynaha Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed ayaa waxa ay kulamo gooni la yeesheen xildhibaanada labada aqal ee deegaan doorashadooda ah. guntii iyo gabagabadii Mareykanka oo Russia ku eedeeyey in uu daminayo dagaalka uu ka geystay Ukraine. Mareykanka ayaa sheegay in xubno ka tirsan ciidamada Russia ay dambiye dagaal ka geysteen dalka Ukraine, sida uu sheegay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antonio Blinken Arbacadii. Blinken waxa uu intaa ku daray in go'aanka gaarista Washington ay ku salaysan tahay qiimeynta taxadarta leh ee lagu sameynayo xogta laga heli karo dadweynaha iyo kuwa sirdoonka. waxa uu sheegay inay jiraan warbixino badan oo lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan in weeraro aanan loo meeldayan uu si ula kac ah loogu bartilmaameedsaday dadka rayidka ah iyo weliba tacadiye kaleento oo ay ciidamada Russia ka geysteen dalka Ukraine, isaga oo tilmaamay weeraro ka dhacay magaalada go'doonsan ee Mariupol. Blinken, xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka, ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray waxa uu ku sheegay in Mareykanka uu sii wadi doono dabagalka warbixinada dambiyada dagaal, una la wadaagi doono xogta uu ururiyo xulufada iyo weliba hay-adaha caalamiga ah. maxkamadaha sharciga ay ugu dambeyntii mas'uul ka noqon doonta go'aanka eedeynta dembi kasta oo dhaca, ayuu yidhi Blinken. Russia ayaa beeniyey in uu beegsaday dad rayid ah. saaxiibada qiimaha badan, inta ayaanu jecelnahay ku soo afmeerno warka Hami Media Group. fadlan la garay fiidiyowan oo la wadaag saaxiibadaada tan iyo warkankiisa xiga noola kulante. nabadgelyo.